بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروس تحناها هيد أن وهل ليني أحكام تحجك ما أنت عشر كين وحكوسة بسنية هاي عقوبة ارتكاب المحظورات قفكي كردعة وحيالها قفك مركو محرم كي لغا حرمي hadduu qofku si kas ah u sameeyo mutacamidan waxyaalaha ka waajibmaya oo qofkaas maaragtay lagu waajibiyay ayaanu ka hadli doonaa. waxyaalaha la fidyada ee qofka muxrimka hadii uu ku dhaco waajib ku noqonaya hadii waxyaalo waajib uu ka tago ama waxyaalo maxduuraad uu ku dhaco, horta guud ahaan afar nooc bay u qaybsamaan. inuu qofku uu ku dhacay maxduuraadkii xalaqadii hore aan uga soo hadalnay mid kamid ah, taas waa mid maxduuraat al-ihraam inuu qofku mid kamid ah waxyaalihii markuu muxrimka ahaa mamnuuca ka ahaa mid kamid ah in uu ku dhacay, taas horta waa nooc kamid ah fidya, waxba dhiig baa ku waajibaya. nooca labaad waxa weeye an yatruka waajiban min waajibaati al-hajj aw al-umra, hadduu waajibaadka xajka iyo cumrada mid kamid ah uu ka tegay isna dhiig baa ku waajibay, waa nooca labaad. nooca saddexaad an yakuuna mutamattican aw qaarinan, qofka markuu yahay xajku saddex nooc buu leeyahay: ifraad iyo mutamattic iyo qaarin. ifraadka isaga waxa ku waajibaya, laakiin qofku markii uu yahay mutamattic iyo qaarin waxa ku waajibaya dhiig leeyahay shukran lillahi subhanahu wa ta'ala, ilaahay ugu shukrinayo ayaa ku waajibaya. laana qofku mutamattica waxa weey intuu cumraystay ayuu xalaaloobaya maaragtay, marka dhiig shukri ayaa la dhahaa maaragtay. kan saddexaad waxa weeye oo dhiiga saddexaad inuu qofku xajka uu ka tago, xajku inuu dhaafo xisaar ku dhacay daraad. xisaarku wuxuu noqon karaa ama cadow baa ka celiyay ama caa'iq kale, sabab kale, jiro kale uu gudan waayay, dhiig baa ku waajibaya iyadana. afartaas qaybood bay guud ahaan u qaybsamaan. fidyada waajibka birtikaab al-maxduuraat waxyaalaha qofka ku waajibaya haddii uu maxduur ku dhaco laftigeedu waa kala nooc weeye, ilaa afar nooc beenaas ay u qaybsantaa. kan koowaad waxa weeye qofku haddii uu ku dhaco ma la fidyata fiih, waxyaala aan fidye lahayn, مثلا caqdi nikaax buu sameeyey maaragtay iyo wixii lamid ah, wax fidyaa ma leh, laakiin caqdigaas waa baatil, waa caqdi baatil. hadduu wax guursado caqdigaas waa baatil fi cinda akthar alculamaa. qofka caaqidkaayo wax u guuriyeyna isna waa aathim bificlihi, laakiin laysa calayhi fidya ayay dhaheen culimmadu. taas marka waa noocaas waxyaalihii muxaramaadka hadaad maxduuraadkaan niri. tan labaad maa fidyatuhu muqallada, wax fidyadiisa la cusleeyey waa qofka haddii uu jimaac ku dhaco, haddii uu qofku jimaac ku dhaco maaragtay idaa jaamaca almuxrimu zawjatahu qabla an yataxallal taxallul alawal. laba taxallul baa jira, taxallul alawal iyo taxallul alakhiir. taxallul alawal waxa weeye markii maalinta xajka yowm alciid hadduu qofku afartii camalo waaweyneyd laba kamida uu sameeyo, maalan jamratul caqaba uu tuurtay madaxna waa xirtay, taxallul alawal baa la yidhahdaa. ama neefkii gowracay madaxna wuu xirtay, ama uu soo dawaaf, aduu laba kamid ah acmaasha hadduu sameeyo taxallul awal baa la yidhahdaa. qabla taxallul alawal haddii qofku uu xaaskiisa jimaaco cinda jumhuuri alculamaa, kow xajkiisi waa fasahaada, xajkiisi waa ka kac. isaga iyo hadday xaaskiisu laftiisu ay raalli ka ahayd, labadoodaba waxaa waajib ku noqonaya inay xajkana dhammaystiraan, cuquubaa looga dhigaya. bas waa iska seexaan may dhammaystiraa laleeyahay, an yastamira calayh. markaa kadib waxaa kaloo waajibka inay soo qaleeyaan xajkii sanadka soo socda. waxaana mid walba oo iyada kamida ku waajibaysa fidya oo ah badana waxa neef geel ah inay qalaan ama neef lo ah maaragtay, oo laguna maaragtay hilibkooda dadka masaakiinta ee reer Maka la siiyo. marka ka muqallada ayaa la yiraahdaa, yani aad baa maaragtay loo cusleeyay. nooca saddexaad oo maxduuraad kamida waxa weeye ma lahu almithl maaragtay oo ma yaquumu maqaamo, wax leh wixii wax lamida inaad bixisid. waa sayidka qofkii ugaar dila, ugaarta qofkii dila ama neef wax u dhigmo oo ah maaragtay xoolihii geel iyo lo iyo ari wax u dhigma. mesela waxa la yiraahdaa haddii uu qazaal dilo, qazaal waa deero, hadduu dilo neef ari uu bixinaya. hadduu dilo gorayo geel la egta neef geel uu bixinaya. hadduu dilo baa la yiraahdaa dameerul wahsh midka la yiraahdo, dameer farowga Soomaalidu u taqaano, loodu leega neef loo uu bixinaya. طيب hadduu dilo ugaar aan xoolaha caadiga aan midna la ekayn waa la qiimeynaya. ugaartan hilibkeeda meeqa ayay joogtaa, hadhow wax u dhigma ayuu bixinaya, masaakiinta ayuu markaas ayuu maaragtay ayuu ku wazacaya maaragtay.
marka wixii mithli ayuu bixinaya. haddii marka la waayo maaragtay wax mithli waa la qiimeynaya, qiimahaas ayuu cunto ku gadaya, masaakiin ayuu maaragtay u qaybinaya maaragtay. haddii maaragtay uu awoodi waayana wuxuu samaynayaa, wuu soomayaa oo qiimaheedii intii masaakiin ay deeqday oo kale maalmaheedoo kale uu soomaya maaragtay. waxaa nooca kale oo fidyada ka mid ah maa fidyatuhu fidyatul adaa. fidyatul adaa waxa weeye hadduu qofku timaha xiiro ama cidiyaha jaro ama iyo wixii lamid ah, ama madaxa uu daboolo iyo wixii ama wax madaxa ku dhegsan uu gashado sida koofiyadaas kale uu madaxa gashado, ama ninkii uu qaato dhar tolan oo kale uu qaato, ama wax barafuun iyo wax lamid oo cadar uu sameeyo, ama qofkii dumarka ahaa ay niqaabato ama ay qafaasayn gashato iyo wixii lamid ah. taa waxa weeye qofku ida irtakaba almuxrimu arrimahaas aan soo sheegnay maxduuraadka wuxuu mukhayir u yahay inuu neef ariya gowraco oo laxamkiisa ama hilibkiisa loo qaybinayo fuqarada ahlu maka, ama maaragtay ama inuu ku quudiyo maaragtay uu quudiyo 6 masaakiin likulli miskiin nisfu saac uu siiyo, ama inuu soomo 3 ayaam inuu soomo ayaa maaragtay. arrimahaas marka insha allahu tacaala way badan yihiin maxduuraadka iyo axkaamteeda, weli waxbaa ka dhiman, laakiin waqtiga aan ugu talagalnay kilibkan inuu socdo ayaa dhammaaday. wixii intaa dhaafsiisan oo tafaasiil ah culimmada weydiiya, fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. qofka xaajiga ah mar walba waxaa fiican dad ahlu cilmi inuu raaco, wixii masaa'il oo ishkaal ka galana uu weydiiyo. hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.